بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada xaajo ofishiyaal wax walba ugu baahan tahay kulan ciyaareedkii soo dhamaaday Bayern Munich iyo PSG wax walba waa ay soo dhamaadeen PSG ugu dambeyn waxay gaartay semifinalka Club World Cup ee loo qabanayo cariga Mareykanka sidee ku gaartay meeqa gool ay ku baasay 1 iyo 2 ayaa ka tataabo doona kadib waxaa ka hadli doona kulanka caawil suuga Borussia Dortmund iyo Real Madrid oo asigana wareega quarter finalka ah waa arki doona cidii soo baxdo marka kusoo dhawaa xaajo official hadii aad nagu cusub tahay barteena YouTube-ka fadlan subscribe noo saar like dhasiina share garay hadii aad naga daawanayso barteena Facebook-gana follow iyo like share noo caawi oo na gaarsii meel sare kusoo dhawaada markale kulan aad iyo aad xiisihiisa watay xamaasadiisa ayaa ka bilowday Mareykanka Bayern Munich iyo PSG kulan lismariwa kambi ever loo maray walow kambi qaybtiis hore dhaawac daran oo soo gaal Jamal Musiala ciyaartan laga saaray wax walba markaas ay indhaxumi isku bedeleen dhaawac halis oo ciyaaryahan kamid Bayern Munich soo gaaray kadib waa la bedelay ciyaaryahankii wax walba ciyaartii sidii ay hadana waji kale ku yeelatay wax walba ay socoto half time sidii loo maray waa la soo laabtay soo laabashadii ciyaarta ay hadana waji kale yeertay ciyaarta wax walba marka waa isbedeleen weer celis macallin walba wuxuu tactic ahaan u fiiriyay ciyaarta meesha ka xuntahay bedel nooc isticmaali karaa bedelo fiican ayaa sameysteen waxyaalo badan ayaa isku soo dawraday waxay socotay ciyaarta ciyaaryahan wali ah Champions League oo cadar ka soo dhigay ayaa shabaqa gaaray gooli ever ayay noqotay sabaxankii PSG qeylida ilaa Faransiiska ay ka soo wada bixin wax walba waa ay isku dhamaadeen ayaa la yiri marka PSG goolka ay hormartay way ku sii weerareen marka Dembele bedel ku soo galay ciyaarta waa ay sii adkaatay wax walba waxa qasay red card-kii ay qaadatay naadi kubadda cagta PSG daafacoodii qadka dhexe daafaca number 5 ka dheelay wax walba way adkaadeen Bayern Munich waa isoo wada baxday maadaama PSG daafaceeda red card oo qaatay wax walba hadana waxay noqdeen in sidii ciyaarta ay kasii xumaato wax walba hadana waxay noqotay halis kale PSG goosheeda labaad dashe iyo red card labaad ay qaadatay laba red card laba gool semifinal sidaas ay ku aaday Bayern Munich sidaasna ay ku artay kadib waxa waaye laba gool waxba walow ciyaaryahan muhiim ah daafaca oo ka bax PSG la weedoon kulanka semifinalka cidii soo baxdo Borussia Dortmund iyo Real Madrid ay daafacaas la'aan ku dheeli karaan Hernandez kii loo madmooday lahaa asina waa uu soo galay red card ayuuna qaatay marka kulan wuxuu ahaa jaale iyo rose toos loo bixinay marka waa arki doonaa kulanka semifinalka wuxuu noqon doono Real iyo PSG mise Borussia iyo PSG iyo Borussia maanta noqotana finalka way jirtaa PSG maxaa ka filaysa ciyaarta iyo sidee noqotay bal commentiga noo reeb ana ka imaad celina hadii dhamaadka muuqaalka ana la soo gaartay subscribe noo saar hadii barteen YouTube-ka naga daawanaysid hadii barteen Facebook aad naga daawanaysid follow iyo like share noo caawi